السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلامي ولا لها طاوني مقال كان دمانتود waxaan ugu talagalay muuqaalkan in aan ku sharaxo qaabka la isu diiwaan gelinayo barnaamijka weyn ee albinaa ulmanhaji. barnaamijkan albinaa ulmanhaji marka hore tacriifkiisa iyo qeexitaankiisa waa kan wuxuu leeyahay hal tawaddu takwiina binaa'in macrifiyyin qawiyyin yajmacu bayna at-ta'siil ash-sharciyyi wa ath-thaqaafati al-islaamiyyi. ma doonaysa in lagu dhiso ama lagu unkumo oo lagu sameeyo dhisme aqooneed oo awood leh oo ku kulminaya asalka cilmiga sharciga ama cilmiga sharciga iyo taasiilintiisi iyo thaqaafadii ilbaxnimadii islaamka. sidoo kale hal tu'aani min ash-shatat al-ma'rifi wa at-tanaqqul bayna al-baramij duna ash-shu'ur bi natijatin waadiha. ma dareemasa in aqoontu ay ka kala tagtagsan tahay kadibna markastaba aad barnaamij isku qaadayso oo aanay waxnaba ku sugmaynba. barnaamijku inta aynaan qaabka la isu diiwaan gelinayay gelin barnaamijku waa barnaamij muhiimadan leh waa barnaamij ku ururinaya تأصيلك شرعي أما علمك شرعي أو أتصوع عن قبضه إيو ثقافة دي البحرمة دي إسلام مركا وردباتات ما أنت تذكر علمك ديجانية علمك استاء هذا تذكر علمك ما أنت ديجانية مشكلة بها إذا إن أنا السوقين وحنا ديجانية لكن علمك مركا ذاك تجدر كلود شيء مركا ذاك تذكر ديجاية مركا ذاك تو سيلبس كمقرر لو ديجانية وبرنامج قفك اللي دبجليه وحوين هبين كستا مالين كستا حادرس له oo cid lagu dul akhriyo haday wax xifdiga yihiin haday wax la soo akhriyo yihiin oo saxitaan sameeyo oo laga eegay kadib barnaamijka marka inta laga yimaado barnaamijku waa kan عن البرنامج شرح برنامج laga bixinayo يتكون wuxuu ka kooban yahay البرنامج من 3 مستويات صدح سمستر ام مستوى ka kooban waxa kaloo meesha ku sheegay ijaabatu ala as'ilati al-musharikeen cilmiyan dadka barnaamijka qayb qaatay su'aalahooda wixii su'aalahay keenay in maartay looga jawaabay mutaabacatu al-musharikiin cabra ikhtibaaraat dawriya dadka barnaamijka la socda waxay galayaan imtixaano lagu eegay aqoontooda masaaqun li xifd al-qur'aan al-kariim waxa ku jira qayb qur'aan kariimka lagu xifdiyo al-barnaamij elektrooni majani barnaamijku waa barnaamij elektrooni oo mobilkaaga iyo computerkaaga aad ku isticmaalayso waan oo online ah yani oo sidoo kale bilaash on lacag laga qaaday muddatu al-barnaamij 4 سنوات muddada barnaamijku soconay waa 4 sano shahaadatun lil mutakharrijin ugu dambayna waxa la siinaya qofka shahaado qofka qalin jabi hadda wadadii koobaad aan furay waxa ahayd linkiga baan soo furay linkiga baan ku soo dhuftay linkiga meesha doontaad ka heli kartaa insha Allah taala haddana waa idin la wadaagaya linkiga oo idin soo diraya ama ha noqoto maxay toolay inaad WhatsApp ka soo raacday ama YouTube ka soo raacday ama Facebook ka soo raacday dhammaan muuqaalkan qaybtiisa YouTube-ka commentiga ugu horeeyaan idin soo gelinaya qolada Facebook-ka commentiga ugu horeeyaan idin soo gelinaya insha Allah WhatsApp-kana waan idin soo dhigay hadii ilaahay intan hore waa wuxuu ka kooban yahay 4 step koobaad waa un sharax laga bixinayo barnaamijka waxaad ku dhufanaysaa marka halka marka ugu horeysay ee bogonku keeno waxaad ku dhufanaysaa wasba u degaysaa waxaad ku dhufanaysaa next baad leedahay haddii macamulkaagu carabi yahay taali ana khaldanayn waad soo degaysaa waa kan aniga hadda yartay ku tijaabiyay qof magacaaga sax baad isku qoraysaa hadda anu waan isdiiwaan galiyay barnaamijka laakiin waxaan isaga qorayaa qof magacii Cabdi Faarax Jaamac halkan waxaad ku qoraysaa albariid الالكتروني الصحيح halkan gmail-kaaga ku qoraysaa gmail-kaaga ayaad ku qoraysaa waxay leeyihiin narju i'timaadahu wa 'adama taghyiirihi lian al-muraasalata satatimu alayk waxa aad loo rajeynayaa in aanad bedelin waayo inaad isaga ku tiirsanaato aanad bedelin waayo waxa lagu soo diraya ama waxa lagu soo diraya isaga ay ku maartay tiirsanaanaysa haddana halkan kale waxaad ku qoraysaa ta'kiid albariid elektrooni isagii baad ku qoraysaa mar labaad oo hubin weeye halkan waxaad ku qoraysaa wuxuu ku yiri mu'arrif at-telegram telegramka waxa lagu aqoonsado ee lagu dhaho baad ku qoraysaa haddaba halkaas dadku xogay ay yar fahmi waayaan maxay tahay mu'arrif telegram waan soo laabanaa bogan aan qabanana telegramkan qabanana telegramki waan furnay telegramka markaan furno waxaan toos u taganaa halkan qaybtan aan taganaa saddex dhibcood oo qof laga mobilada carabiga xagan bay ku taala baan ku dhufanana waan ku dhufanay waxa noo soo baxay bogana noo soo baxay bogama ku noo soo baxo waad kala sameyn kartaa adiga ma baxaa ku dhufan haddii mobilkaagu carabi yahay xaggan aad u riici kartaa haddii mobilkaagu English kugu language-ka luqadda aad ku isticmaalaysaa
ugu saf garsantana adigoo xaggan iska joogo un baad xaggan u riixaysaa mobilka wadsaan leedahay kadib waxa ku soo baxaya boggaas ku soo baxay waxaan idin boggan laba qaabad ku soo saari kartaa in aad halkan iminka taagan tahay inaad xaggan u riixdo xaggan aad soo riixayso yani iyo inaad samayso in aad saddexda dhibcood ku dhufato kadib waxa ku soo baxaya waxaad sii dooranaysaa boggan marka ku soo baxo si kasta aad u soo gashaba qaybta settingkaas ayaad ku dhufanaysaa waxa ku soo baxay iyadana boggana ku soo baxay meesha la doonayaa waxa weeyaan username mucarrif telegram waa waxaas weey username intan baa la rabaa inaad cadaadiso oo magaca nimanka Haaruun aniga igu qoran baa la rabaa inaad xagga geyso waxaad samaynaysaa waad diijinaysaa marka waad cadaadinaysaa waad haynaysaa kadib waxaad samaynaysaa maxay copy baad leedahay waan soo copy garaysanay waxaan ku soo noqonay barnaamijkeennii isdiiwaangelinta aan ku noqonay waan sideenna hadda waxaan ku noqonanaa isdiiwaangelinta waan ku noqonanaa xaggan baan geliynaa marka aan kama soxo si qof aad gelinayo kale waxaan samaynayaa waan diijinayaa waan cadaadinayaa kadib paste baan leeyahay intaas markaan dhaafno waxaan soo gudbanaa aljinsu wadakar dee marba waxay tahay dee anuu nin baan ahay dakar baan doortay da'daada intii aad u dhaxayso tusaalahan 15 ilaa 23 kaasi dooranaya 24 dad ka weyn tahay ama 24 tahay ilaa 24 wixii ka weyn oo ilaa 30 ka dooranaysa 30 da'daada haday tahay ilaa iyo 40 aad u dhaxaysa ka dooranaysa oo yahay aan taaban doortay inta baran ka nimaadno baladul iqaama xaga joogto wadankii baad ku dhufanaysaa wadanka ka dooranaysaa Soomaaliya waan dooranay kadibna haddana xaggan aljinsiya dhalashadaada war waa dhici karta inaad kala duwanaato wadanka aad joogtay dhalashadaada sidato iyadana saas oo kale Soomaaliya waan dooranay qofkii wadanka la joogaan isna wadanka kale ayuu sameeyay insha Allah المستوى الأكاديمي waxbarashada akademiga ah marka yani waxbarashada nidaamiga ah xageed ka gaadhay ma dugsi sare lama rabo yani in ay dad maxay toolay dugsi hoose mise dugsi dhexe ku jira inay barnaamij qaataan dad dugsi sare ka soo baxay un baa magaraas aad ma dugsi sare tahay mise waxa weeyaan baccalaureate baa tahay mise doctor mise waxa weeyaan PhD mise master baan ugu hay master baan doortay kadibna waxaan ku dhufanaa next كسيحة أما التالي عناصر بحي بقول تحصيل العلم كيف ترى مستواك في العلم الشرعي أقانت علمك الشرعي سيديبات سلالة وقطعي ما مبتدي قف بلواتهاي متوسط مقدار حاد باتهاي مثل متقدم قف وحوية واحد هاي أدو سرية متوسط أي أسكف في عين دورته هذا هو سنة مبتدي دورته كيف تلقيت العلم الشرعي علم الشرعي سيد كبرت ما معهد بعد برتي كل جنشرتي ما برنامج إلكتروني أونلاين كل جنشرتي ما علمي قف شيخ كل جري مثل لم أدرس شيئا في العلوم الشرعية هم أدري مياه مركا أنت بندتكم في معهد على أرض الواقع معهد يتواصل الإنترنت الإلكتروني هاي باي كصبحين صومرين waxaan ugu xigaa marka qaybta marka soo dhaho waad iska oran kartaa others hadaba meel kale wax soo dhigato sabab kale laakiin waxa inta badan dadku macaahid bay ka baxeen taas ay dooranayaan waxa ku lagu oranayaa mal barnaamij al-ilmi أو ما هي البرامج العلمية التي سبق أن التحقت بها أو أنت ملتحق بها حاليا برنامج أونلاين هذه أي شيران بعد دقيقة أي شيء جسا مركا كونات كأخرية صح هذه كونات متكملة كوجرتها أما الله حواد كوجرتها مت بتصير كرتها هذه أنا متكملة بكوجرينا أدرس بس كلا هاي كدمنا أو كوا ولا صار شيء متكملة أنا كوجرين أدرس بس كلا كدمنا كويا هاي بعد غرسها بعد كذا ما ينكرت سياسة سودي وإنجليزيون هذا حب كوجرين ماشان وحوا برنامج ما دكتور كم جرتو كان ميدون بس كسر كرتا مش كذا فكرتها ميدون بس كسر كرتا مش كذا فكرتها waxaa ku xigta next baan leenahay oo ku soo xigsiinana next baan leenahay waxaan ugu soo baxay bogga ugu dambeeyay boggan ugu dambeeyay waxa lama buuxbuuxinayo ballan qaad bal sameynaya nadaran li kawni takrari bayanat shakhs alwahid في موقع البناء المنهجي يسبب إشكالا لإدارة البرنامج فنرجو منك التعهد بأنك لست من طلاب الدفعة الأولى أو الثانية المستمرين بالدراسة فيهما waxleeyahay waxa ballanqaad si aan ugu dhibtoon magaca ardayga soo noqonay waxa ballanqaad gashaa inaan ka mid ahayn ardaydii hore marka ataahadu bidalik baad saxasa yani wan arrinka wan hufniya wan ka mid yani halkana waxa leeyahay saaciyan min idaarati binaa almanhaj taawun ma'a tulab tafaa'ul ma'ahum tasil waxa la sameeyaa qanaadiyo xagga telegramka barnaamijkan wuxuu 10 lagu dhigayaa waa telegramka marka waa in barnaamijka telegramka la soo degto wax iska fudud بلاي ستور كتكون قرصة تليجرام قفكان وحوين لهين كدي نوع سمانية وسوبر بحسنية ودي حاجة هراء سومر إني هيد معرف التليجرام ما بقى ميو بحين كرا قفان تليجرام لهين مو يقفكر هالكم وحكي كلية مركا جروب أضوها السمايني وهي جروبي ويسميسين مركا وحلا لا أعي ذلك وأتفهمه
وصماني إن شاء الله يلا هاي هكذا سيظهر لك بعد تسليم الاستمارة وحلي مكتب بحسين اسقرطه وحكوصه بحية معي isdiiwaan gelintii baa kuu soo baxaysa ama wax ku soo baxaya page-kii Telegram-ka kuu soo baxaya ee ka tagine waa inaad saxdo doorto ka wax leedahay maxay aciidalik waan u jeedaa arinta submit baa leedahay waan isdiiwaan gelintii intaas markaad samaysay ayuu leeyahay duunaka raabidul qanaati rasmiya lilbinaa kaliya waxa ka xiga inaad isdiiwaan geliso waxba kale kaama xigaan in aad halkaa ku dhufato ma ka xigto ya inaad linkiga ku dhufato linkigi ma ku dhuftay wuxuu geenayaa Telegram-kii buu geenayaa Telegram-kii buu geenayaa علينا Telegram-kii waan ku dhufana markaas isagana على just Telegram-kii ma ku nageeyo waxaan sameynaa Telegram-kan toos u tagana afan garan lahaada Telegram-kii buu nageenayaa waa kan marka hal leedahay join baa leedahay waan ku beeray yani ama ku beer you join this channel waad ku beerto ya sidaas ayaa waxa weeyaan ku dhamaystay barnaamijkaas oo aynu diiwaangelintiisii ku dhamaynay mid kale jirta oo si aanu kaaga dhexgelin gruubyada faraha badan kan casharada la soo dhigayo waxaad samaynaysaa waa yara dejinaysaa saas u yara haynaysaa markaad hayso kadib calaamadaas baad ku dhufanaysa marka aniga marka muxuu sameynaya xaggan hore ku imanaya sida qolada Englishka aniga ay yihiin xagga hore kale xaggaas ka arkaysaa inuu painter kugu xidhayo ku maarta saasaad u qabanaysaa kadibna waxaad ku dhufanaysaa calaamadaas ku dhufanaysaa maxaa marka dhacay xagga hoose kaama tagayo xaggan hoose kaama tagayo markasta xagga sare ku jooyo oo ka imka soo ugu saray ya marka ilaa 5 meelaha ilaa 5 barnaamij ama andhay group buu qaadaa painterkaas saasaad sagana sameyn insha Allah aad u mahadsantihiin salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh